marwo xildhibaan Hinda Cabdullaahi Xuseen oo ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Seylac ee xisbiga Ucud ayaa waxa ay gaadhay maanta magaalada Looyacado iyadoona halkaasi ka furisay xafiis ay ku yeelan doonto magaaladaasi markay gaadhay marwada magaalada Looyacado ayaa waxa halkaasi si meeqaam sare loogu soo dhaweeyay qaar kamid ah haweenka iyo dhalinyarada ku dhaqan magaaladaasi xildhibaanadan da'da yar leh ee u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Seylac isla markaasna kamid ah haweenka da'da yar leh ee ku nool degmada Seylac ayaa waxa iyadoo halkaasi ay ugu dambeyntii xariga ka jartay xafiiskaasi ay ku yeelan doonto magaalada Looyacado dadweynihii ku soo dhaweeyay magaalada Looyacado ayaa waxa iyagu halkaasi ay ka ballan qaadeen isla markaasna ay u muujiyeen inay siin doonaan taageero iyo miisaan leh isla markaasna ay codkooga siin doonaan maalinta codaynta marwo xildhibaan Hinda Cabdullaahi Xuseen oo iyadu ka mid ahayd haweenka da'da yar leh ee ugu firfircoon deegaanada hoos yimaada degmada Seylac waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan xildhibaanada Hinda Ilkacase ku soo dhawow ee Ucud magaalada Looyacado si fiican soo dhaweysiin oo u sarakacdiin oo gacmo furan ku soo dhaweysiin baa loo baahan yahay codkiina la siiya adama cadadu ma la taagnaanaya hadaa codka la siinay loo huray codkiina u hura madaxda dhashay reer Looyacadana waxaan ugu talagalnay inaan ku soo dhaweyno boqorada xildhibaanada Ucud Hinda Ilkacase ku soo dhaweeya inaad codkiina u qudin una hurtiin diyaar Hinda Cabdullaahi Xuseen oo ka sharaxan gobolka Seylac annagu diyaar baanu nahay haddaanu nahay dhalinta reer Looyacado hiil iyo hooba oo garab taaganahay gabadha Hinda Cabdullaahi Xuseen sidoo kale waxaa xariga jarkaasi kala soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga Ucud ee gobolka Seylac waxaana hadaladiis ka mid ah sida tan cusub ku soo dhaweynaynaa musharaxada xisbiga Ucud ee garabka haweenka Hinda Cabdullaahi Xuseen anigoo ah gudoomiyaha xisbiga Ucud ee degmada Seylac waxaan mid kasta oo xafiiskiisa furtaba anigu waa ku soo dhaweynayaa waa inantii horeyseen xafiiskeeda furo qofkii ugu horeeyay weeyaan ku soo dhawow dadkuna waa inaad sidaad u soo dhaweyseen codka u siisaan siiba dumarka wasalaamu calaykum gabagabadii ayaa waxaa iyadoo halkaasi ka hadashay marwo xildhibaan Hinda Cabdullaahi Xuseen isla markaasna u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Seylac horta sida quruxda badan leh sharafta leh hadii soo dhaweyseen aad iyo aad baan idin celinayaa waana ku faraxsanahay run ahaantii taageerahaas in muujiseen haddaad tihiin dad bulshada reer Looyacado dumar iyo dhalinyaraba waxaan u baahanahay maalinta codeynayo inaad codkiina hiil iyo hooba igu garab istaagtaan aniguna waxaan idin ballan qaadayaa bulshada ku nool Seylac iyo Seylac iyo Looyacado dhalinyaradeedu camalaanba ay khalaas u tahay dumarkuna dhibaatooyin fara badan baa haysta waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo xidigtii u iftiintay dumarka inaan noqdo kasta oo maxay yeelanay dawladdu ay had iyo jeer dumarka xagga hoose ka marisana in aan ka soo saaro ayaan ballan idinku qaaday idinka waxaan idin rabaa inaad hiiliyo ay garab joogsataan waayo maanta nin kasta oo wax noqdo waxa wax ka dhiga waa haweenka iyo carruurta cidinayna ma oga cidina war inooma hayso wax kasta oo aynu u baahannahayna dhibaato kasta oo timaada inaga xalsanaa laakiin haddaynu hal qof iska soo dhex saarno dhibaatadeenna xal baynu u helaynaa waxaan odhan lahaa dumar oo midowno raggan aynu codka siinaynaa waxbay nooma soo sidaan kaliya ku tutuunsada inaad aniga codkiina siisaan anna waxaan ballan inigu qaadayaa inaan xaqiina inoo soo dhiciyo